innagu haddaynu Soomaalina waxaynu qaadanay dariiqa ayna yareeyada dawladii weynayd waa lagu heshiin waayay ina kala gooya gobolkeedu ina kala gooya waa ina yareeyadi reerka heshiin waayay laba sultaan u samee kuwa hoosaasi waa saddex caaqil u samee waa ina yareeya xalkeenu hadduu qabiilka yahay hadduu dawladda yahay hadduu shirkadda yahay shirkadda xoolo la isku daraya say u buumuunsantay u shaqaynayso ayaa la odhanayaa labadii wadaad ee haystay baa isqabtayo way ku kala baxeen midna laba gaadh u qaatay midna laba gur u qaatay waa ina yareeya xalkeenu halka dunida ay tahay mushkiladdu markay dhacdo war mushkiladda xal ma u helaynaa wataasi caalam alislaam oo dhan maxaa ka jira magaal baa intuu yimi jabiyey maya caalam alislaam inaga isjabinay gaalkuna dabku inala huriyey mid qori inaga iibiya iyo mid ina amaahiya iyo mid yidhaahda adaa xaq leh horow soco waa ku garab taagnaya iyo mid yidhaahda qaanuunkan kugu taageeraya United Nationka sidaa yidhi wuxuu doonayaa kugu taageero isna dabaduu kaa riixay markaad jabtayna wuu ku daawado wuu kugu qoslay waliba markaad xad jabkaagu gaadhayna wuxuu yidhi waxbaa kuu yaran dhiman oo wisaaya baad u baahantay hay-adaha midoobay iyo inay kula taliyaan waxaan idiin sheegayaa Soomaaliya waxbarashadeedu dugsiyada hoose 900 oo saacadood buu ahaa curriculumkeedu 900 oo saacadood ayuu ninka in elementary school ka dhigtaa curriculumkiisu ahaa markay isdishay ee jabtay ayaa UNESCO timo waxay tidhi annaga idiin qoraynaa idinku dee waa waalateen leene annaga idiin miyir qabno annaga idiin samaynayna manahijtii laakiin caqligiinu rehabilitation buu u baahan yahay ma qaadi kartaane 540 saacadood baanu idinka dhigaynaa 540 saacadood syllabus ku salaysan ayaanu idin siinaynaa si aad wax u barataan idan markaad jabto waa lagu talinayaa si kastaba waa lagu talinayaa ilaahay aayadda markuu inoo tilmaamay war waa daciifaysaan oo awoodiinuna waa tegaysaa oo cadowgii ma idinka faa'iidaysanaya ha isqabanina ayaa haddana aayadda waxa lagu gabagabeeyay u fiirso wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa la yidhi dadku markay wada joogaan bini aadamku markastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa ilaa bini aadamku qof waliba akhtaadiisii buu wataaye markastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa dadka aan xalka aqoonini mashaakilku markuu dhaco sida loo xalilo dadka aan aqoonini waxay xal ka dhigaan nidaamka la yidhaahaa ina yareeya si xalku inooga yaraado kun nin baynu ahayn Soomaha waa isqabanay mal xal isbari weyne 400 iyo 600 inoo kala jabiya marka nin waliba groupkiisu ku farxaya waa inta isku raayiga haya mushkiladii baa soo yaraanaysa ilaa groupkani markay hadhow isqabtaan maxaa xal ah waa ina yareeyadide inoo kala jeex weeyaan gooso intaydan goosanaya 200 baan na qaataa 300 ama 400 qaado ina yareeyay xal ka dhigaan dadkaan aqoonta lahayn bini aadamka si aqalku ku dambeeyay fikraya waxay dhahdaan ay mushkilad timaada solution bay leedahay xal raadino mufaawadaadka aan badino wada hadalka aan badino xal aan raadino there should be a solution wa inuu jiraa wado mushkiladda lagu xalili karaa saadaradeed innagu haddaynu Soomaalina waxaynu qaadanay dariiqa ayna yareeyada dawladii weynayd waa lagu heshiin waayay ina kala gooya gobolkeedu ina kala gooya waa ina yareeyadi reerka heshiin waayay laba sultaan u samee kuwa hoosaasi waa saddex caaqil u samee waa ina yareeya xalkeenu hadduu qabiilka yahay hadduu dawladda yahay hadduu shirkadda yahay shirkadda xoolo la isku daraya say u buumuunsantay u shaqaynayso ayaa la odhanayaa labadii wadaad ee haystay baa isqabtayo way ku kala baxeen midna laba gaadh u qaatay midna laba gur u qaatay waa ina yareeya xalkeenu halka dunida ay tahay mushkiladdu markay dhacdo war mushkiladda xal ma u helaynaa ma jirtaa solution aan kaga bixi karnaa qaab aynu horo wixeenan xooggeeno inaan kala dirin inta mushkiladda ma ka saari karnaa meesha tan aqligu saas u ahaa qumaniinu keeno laakiin inaga aqligeenu wuxuu keenay dee baadiyaynu iskaga nooleen baadiyaha marka la isqabto dee gabadhun baa la yidhaahdaa naa awrka ii qabo intaad heeryada saarto waxaa ku gurato ayaa dabeetana bannaanka ilaahay kale
ay baad isaga guuraysaa ilaa waa dhul wada bannaan buu ahayo meeshaa doontaa iska degaysa caqligii guuritaanka ahabaa inagu jira oo ah labadiis qabtaaba inay awrta inoo kala furin ay yidhaahdaan dabeetana uu ka tago caqliga bini aadamkaa suubane ma aha dadka kama dhib badnin dadka badh baa moodaya soomaalidu inay mushkilad badanto waxaan u arkaa soomaalidu dadka ugu mushkilad yar leynayeen waa dad isku afa isku diina isku dhaqana waxay ku kala gedisan yihiin oo badanaanay jirin yes waa isyara duldulmiyeen ama xoolay kala qaadeen ama dhib baa dhex martay dhibi waa jirtaa laakiin ma aha dhibta dunida ugu buuran mushkilaadka dunida ugu buuranna ma aha waa mushkilaad xal loo raadin karayo sida ogeed ilaahay aayadda wuxuu ku gabagabeeyey wasbiruu ina allaha maca saabiriin war sabra baa la yidhi sabra waa qaabka mushkiladda loo xalilo ha kala yaacine sabra oo kiina xun u sabra oo dulqaata oo kala dambeeya oo wasbiruu baa ilaahay yidhi ina allaha maca saabiriin